وأنا ما بلنتين سياد مدحوين فرماجي وليه كرتان طريقة دلك أتكوه قامنيسو وخلد بدح الليحي ديكتاتورية يعبرس يقصب iyo maxaan ku raadayay adoonsi loo bilaabay ay tahay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka daahsoon horta inaan saas inaan u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan ma caawa in ay ciidamadii dawladda ay soo weeraraan barxadii banaanbaxa lagu qabanayay hoteelkii aan deganayn iyo ereydii oo dhan inay soo weeraraan ay ku soo weerareen baabuurtii qafilneed ee beebaha ahayd ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday horeyna hal maalin kuma soo shaqeynin doorasho waxa la yiraahdo haba yaraatee qof dictatorship oo rabo kaligiis inuu kaligi taliya ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan uu caburiyo oo dimuqraadiyadana ka dhumiyo waxa caawa ka dhacay daljirka daahsoon iyo hotel Maa'ida waa fool xumo tii ugu xumeed waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel banaane waa weerar lagu soo qaaday dawladnimada Soomaaliya dimuqraadiyadda Soomaaliya xurriyadda shakhsiga Soomaaliga ah oo la rabo in hadda loo bilaabo qarniga 12aad dictatoriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaan ku raadayay adoonsi loo bilaabay ay tahay awal waxa la soo saas beeyay karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaalida dhaqanima ilaa al-shabaab si ka dhigto waa la arkay Soomaaliya inay isqarxiyaan oo dadka qeyracaan nimankan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jira marka wax naxariisa oo ileeyahay ma jirto horta dalka meeshu ku socdo waxaan rabaa inaan si fiican u fahamtaa dadka waxa xun looma sheego belad laakiin waa qarsan weyn run aan sheegaya maxaa yeelay haddaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiyo annaga dambiilayaal noqonayna aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xalkiisa ogtihiin marka waa la iga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada sameynayna talooyin badan waxay soo gaarayaan ruuxan dib isaga reexa baashan hore u soco waxaan dhahay ma sameynaa laakiin shay qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro maanta waa maalinteedii